www.expressnews.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ دقيقتي الملكة ودافع دنيا النقلات جان قادسان. دقيقتي الواحد كسر واتن ورئيس قارن لي لنا أبوان أحمد عبد الله محمود أحدى وكم إذا أبوان الصوماليات فدقي سنويها مقالة لندن عرق إنجليزكا. دقيقتي البرامج كنا يوحنا كوي جدونا سيدو وركا أبوان أحدى hees uu abwaanku sameeyay oo la yiraahdo xus jacayl isla markaasina ay qaado fanaanada Xamda Kuwin oo timiiska barnaamijkiisa raaca Soomaaliga ee uu daadiyay isla markaasina uu galwadeenka ka yahay Cabdi Goodabees waxaana abwaanku dhageystayaal ka hadli doona sida uu arko heestaasi iyo waliba barnaamijkiisa raaca Soomaaliga waxa uu ka aaminsan yahay wana kan dhageystayaal barnaamijka oo dhameystiran ay la dhageysta abwaan Axmed Cabdilaahi oo gorontiba ku soo dhawow shabakada caalamiga ee Express News waandaway qalb baqinaad baan ku salaamaya isaasho gooraysan abwaandooniya inay ku weydiiyaa waxay tahay sidaad u aragtaa barnaamijkiisa raaca Soomaaliga ee uu daadiyay Cabdi Good lagu ablaabneeyo ama lagu falanqeeyaan idhaahda heesaha Soomaalida bismillaahir rahmaanir rahiim tawa su'aal wanaagsan runtii anigu dee aragtida hadii aan ka hadlo ama dareenkayga aan ka hadlo oo runtii barnaamijka anigu waxaan u arkaa barnaamij ku soo kordhay dhaqanka suugaanta iyo Soomaalida waxaan u arkaa barnaamij aan laga tashan ama aan cidi isku raacsanayn waxaan u arkaa barnaamij cidi isxumaamaday ama ay dee magaranaysaa intay isxumaamaday dabeetana keliya raaca Soomaalida ayaan barnaamij la yidhaahdo ay sameynayaan isagoo aan barnaamijka raaca Soomaalida wuxuu ku dhigtan yahay leeri garasho iyo runtii xabka oo runtii laga rusheego marka anigu waxaan u arkaa inaanu goorteedii kula joogin waa laga yaabaa nimanka qaarkood dee dadku ay u arkaan meesada heesaha dhaqanxumada marka dee la qabso in ay dee heestii ama ka sheekeynaysa ama dhaqanka Soomaalida ka xun laga yaabi karaa in dee dadku ay yidhahaan wallahi jaalkaas baa la qabtay laakiinse waxaan anigu arkaa haddii la doonayo raaca Soomaaliga in la sameeyo waxaa loo baahan yahay guddiga loo baahan yahay in guddiga loo saaraadaa loo baahan yahay in laga wada hadlaado loo baahan yahay in laga tashadaadaa loo baahan yahay ma aha anigu intaan halkaa istaago inaan heesaha Soomaalida oo dhan dee aan intaan kufujiidi qabsado oo haddaa risiigaan ka ahay dee waxaan doono aan ku xukumo oo marna aan anigu xaakimkii noqdo marna aan dacwadowgihii noqdo marna aan dee magaranaysaa loodarkii noqdo intaas waxaan u arkaa anigu barnaamijka afka raaca Soomaalida inaanu tubtii saxda ahaa aanu haysan dadweynaha Soomaaliyeed naftigooda ama hal-abuurka Soomaaliyeedna intii lagu geystay canshaarifayn badan iyo dee magaranaysaa waxyaabahan qaban ma la oran karaa abwaan Cabdi Good oo daadiyaha barnaamijkiisa raaca Soomaaliga ee ka baxa televisionka Somali Channel waxbuu ku soo kordhiyay afka Soomaalida iyo tankiiba wallahi anigu taas hadaan abisharaxa ka hadlo sida aniga ila muuqato runtii fanka afka Soomaaliga wuxuu lahaa ragta qoray kutibu lahaa runtii marka wax lagu soo kordhiyay wixii lagu soo kordhiyay Soomaaliga waa laga shaqo waxyaabaha lagu soo kordhiyay Ruusiya Soomaaliga xeerkiisa waxaa ka mid ah maamaayada waxaa ka mid ah runtii murtida waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo loo baahan yahay in Ruusiya Soomaaliga lagu soo kordhiyo laakiin soo ma aha anigu inta qof qortay oo ku soo kordhiyo intaadii aad soo kordhisay marka aad soo kordhisay aad soo kordhisay waxaa loo baahan yahay in laga helo dad buu leeyahay oo isir buu leeyahay oo ku arooraa buu leeyahay marka waxaa loo baahan yahay qof qoyskii beerta uma jiro ama qof qodo keligiis waxay ka jiro maskaxdaadu wax way keeni kartaa laakiinse waxaa loo baahan yahay wixii in laga eego oo guddi loo sameeyo oo dee magaranaysaa sidii qolka iyo akadegeyntiiyo horumarinta suugaanta ama Soomaaliga in la helo oo dad soo kordhaya markaa dee runtii wixii waxaa uu soo kordhiyay laga qaato laakiin abwaan سؤال دوني كويدية تاي إكتواحي تاي مركا لقى هلا فانكا يسوغانتا أو يقوى لمعنى موقتاي فانكا يسوغانتا إسكبوطا
يا فكرة بالورن كرام مركها دي خلدمان ده وعلى نوسا خالد هو أركا وحاسيني كرائم أنت وحاسيني كرا تجي كذية وحاسيني كرا جدي دي وحاسيني كرا بس أنت كومو هندر مكرن إنت الصومالي ده أنت كومو هندر وحاسيني كرا لك فرتي الصومالي ده وحاسيني كرا جدي ده وصدق ده الله ما بعوضه يا الصومالي ده وأنت ما كان الامتحان هذا بعدين الشابي ومركز في بريء ولا يعني كيف كيف هتكلم ده ومركز سؤال واحد تريد إنه ما بعد تريد أنت كنت كان والله أنت على وما يفوت سؤال تخش برضه كان ما يكرر شيء وده شيء أنا ده أنا كنت عايز أقول لك كده وحنا كده أنت كي كل هذا سؤال ده وهو لقيت شيء أبوان ملورن كرا وقتيده هو واحد شري قبائل لقوسي كرا أما قديات كذا واجسي ملورن كرا وقت حاضر كم قدياتي مثلاً أصدق ربتي هو لورن كرا ولا قاعد كم كذا كده إنك مثلا كده كم شيء سبحان الله ربتي واحد بدأي بالبصرة بدل كل عيد هذا شو ذا شيء هاي جربي يتسكي على إنه شوف كمتين واحد شباب وقتي وواحد وقتي على حسب عيد كمتي الصومالي كمتي واحد شوية كثيرة كل هذا الصومالي ده اللي يقعدوا بسونا يلا كم رجع هذا كشراء إنك الصومالي أنا كنت أخذ أخويا أكيد أخويا رجالتا فكان أكيد وأيضا هذا إيراني ساوند قصير بس تقول شيء كده يتشري رجع أكثر شيء كامله أبو نحدة شاكن دوني يكو ديني يتاي حكتا واحد تاي إن هاس أديبو المروه ذا ترسي أولا يلابا حس شعيل فنانة حمد كوين كله قيتاما نرهدي أدكا ليدا هاي وكذا هاس أدو واحد تاي نيتنين ميسكا برامج كيسراء عطا الصوماليكا oo adigood talanqay adigu sida baad aragtay maxaa soo oran lahayd والله أنا أقول أنا هسه أرتو أنا أركضي ما هيك كمية هسه أروتي عندك بديستان وأنا هيك روتي جد عام كنت بتاعي روتي أتيجي بقى روتي يعني وده خطر أنا وده خطر إني بعطيه في باب وحي هاي أنت وقت كيبور اللي أنا وده هسه كده يعني سلاسل وأنا سمعيني كلام سلاسل جدا ليك صراحة وعن ويانا تسامحني لكن تدخل إنه هذا مع اللي تقدر واقع وانت تريد أن يروح على هاي لكن ترجع كلامها أو تروحي على الناس اللي كتير وما يتبعها إن قد تران كيل تبعي يوريه هي تكتري هي تكتري لأنه عن تكن عمل في روحي في تصانع لو كرتن إن أنت ما قبل لما تبعته وعلى كذا الفرق على كذا الصومالي هو مركز عن كيلو دولار أيه نقدر هاي غريبة هيك بتقولي كلام كذا كذا أنا أركع إنه تيجي كذا أنا أركع إنه يشتري أنا أركع هيك أنا وحنا كشيء وعلى عليه بكسر إذا أنا شيء عبد الجبار كويس إيش أنا بلعبين يدي ولا بيشتري هذا من وحجبنا تحيث كل جعل تجري قلبي وعدي قال كده حريات كده قبل ما يقول وأنا سبحانك يا عدي يعني دي ولا ويك لبودي ويك لجريدي يعني سما إيمانيان بالوايه هذا بيعك حسكو كالجعل كدقي كالجعل بالا استعمال قلبي قاعد يقول حريات كده تحقق ابو بالله في سيدي حسكو كالجعل كدقي قلبي قاعد يقول حريات كده حوض طول حق النبا ومقور سيدي أيامه هالشيء سوقاتي أيوة حقيقة ضيبة ومن يجي قضي وصور نوع كلام كذب نوع كلام أنا يسخن بصدري وصور هالشيء جيت أتى حقيقة حقيقة وحبي حبي قاعدة وريبة هيوتي حرية كانوا يفكرني حبي قاعدة وريبة كانوا يفكرني حتى يقولوا وحبي حتى يقولوا حبي قاعدة وريبة مكان كذا كانوا يدرسوا حقيقة يحط يدرسوا يدرسوا هذا سمعت أولي ما كان دليل ولا واحد أي واحد مدرسة
xaqeeduna waa runtii xubiga adiga wada naftan ku xasilin lahaa anoo xila ku noqday dad dumarku iyo ereygaasi subxaanaka ya cadiim ereygaasi meesha ma qabanaya anoo xila ku noqday xubiga adiga wada naftan ku xasilin lahaa anoo xila ku noqday jacayl ka hadmaan xusnaa aday kugu xidhantahay كلمة التجعاد كده التجعاد وقضية حوالي فرمية ده كسوة شريك فيسكا على بعض فرمية ده كسوة شريك على الله تعالى ليه وهكذا دي فرمية ده كسوة شريك فرمية ده كسوة شريك حرمية ده كسوة شريك وسنة أنا هسه واحد فرمية ده كسوة شريك على أنا تعالى حرمية دقن soo jiriya xanaana hadaan jiro xurmiye dhaqanka soo jira waa maxay jacayl baa laga hadlaya ay hadmayni isguursanay ma dhaqan iyo xurmo soo jiray xurmiye dhaqan soo jiriyo xanaanu hadaan hatta xushmad lagu darin jacaylku xaqiisa hanan marka dee anigu hadda good runtii heesteydan dee waxaan u arkaa heesada anigu ma diidanin in bulshada heesteyda ka belegciso waxay tahaa dadka yidhaahaan laakiin hadda good waxaan u arkaa nin soo heesta ka soo bareeray waxaan u arkaa nin runtii caqabad ku ah heesaha soomaaliyeed inta anigu dhaqanka xun ka hadli maayo laakiinse waxaan ka hadlayaa heesaha inta wanaagsan waxaan u arkaa nin hal-abuurkii soo socday daayarkii soo socotay marka gargaran la samaynayo saxaafada ama ninka wariyahay wuxuu ku soo shaqeeyaa soo samaystay ayuu dadka la yimaada oo dadkana ku koraya laakiin shacabkeedan waxaan u arkaa nin runtii doonaya heesuu leeyahay oo aan waxba ka qaldanayn inuu markaa maanta dabeetana borgaran ka dhigtay oo weliba heestiisa qaldo oo weliba siduu doonay ka yeelo taasina maaha wax qabata halabuurka iyo abwaaninta daadayada soo koraysa haddii hadduu ansaxayo oo beerteedii iyo goobteedii iyo xilligeedii ansaxayo waxaa loo bahay oo weliba dee guddigeedii iyo dadkeediina wato oo heesta uu dacwo ku sheegayo oo dabeetana ninkii heesta lahaa istifaacayo oo waxaan kugu yiri markaa xankiiskii imanayo oo markaa dabeetana xukumayo laakiin si xankiisa dacwadayo wixii bay sidaasu ah siduu dooni yeelayaa waxaan qaaday fanaanada runtii aad u qaaliinayda xanta kuwiin gabadhaas waa gabar sasaha axmed meegaasoomaaliga eegsada waxay le waxbaan ka hayaan waxbaan xorinaya waxbaan ka haya meegaasoomaaliga gacantiisa ku qaldan yahay inantaa naftiiseeda markii uu ka sheekeeyey inantaa abdagaadooy bukarti ya isagoo markaa leh samirka iska leesaysa muuqaalka ugu jirtay fideogan oo dhaqankaa leeyahay marka hadii dee waxaan u malaynayaa runtii inuu geedka ka dareeray inuu runtii dadka deysku meel ku alayuusa video soo geliyo ama uu meel soo fadhiistay oo ka soo caqleen oo marka halkaa la iska dee maqanaysa marka hadii waxaanmaa dad badan hore ayaa runtii halabuurka aada ugamu hadal dad badan hore ka hadlayna way jiraan laakiinse aniga waxaan siinaya cabdi iyan saxo oo waxa ka hadlayo uu sababeeyo oo adaareeyo oo heesta ka hadlayo mudaheeda soo xafido oo maqiteenayo heesadeeda soo xafido oo tibiyaha mararka qaarkood cabdi markuu ka hadlayo heesa tibiyaha qaar baan karaysa marka maaha kuma taagan karna cabdi anigu maaha inay heestayda gubayso waxaa sheegtaa heesta dadweynaha waatay abwan aad iyo aad baad umahadsan abwan axda maxaad gabagabadii kusoo gabagabaynaysaa abwan fursadan ay ku siisay ictiraaf news waxaan kusoo gabagabaynayaa ictiraaf news aad iyo aad baan tabaanaya iyo adiga wariyahaba khaalid runtii waxaan kusoo gabagabaynayaa war haddii runtii dhaqanka iyo fanka iyo sugaanta soomaalida wax aad macaan oo wax runtii aada u wacan weligeed bay soo jirtay soo jeeday ahayd intaasoo kumanaanaysa lagu soo dhaxlay runtii
ولي ما نعرف دقن كان إنكم نقصوا قربين اللي هي ولا بلادين هذا بلادين أنا وقال سينسكا هذا بلادين حيوان كيو حتى نقول شيء فرق أنا دقن في نقول ونقول الصق أنا هذي هنا يقول لا أنا وحنا كذا أنت في كذا يوم هذا فيديو من كذا هذا وكان في يدك جالس غالبا في دقن زمان أنا أذكر بشرط كنت في مكان كنت يوم وش هذا dadku bilaamadan kuwa ay khasbanaya ilaahay waa afuur waa bashar ma garanaysaa laakiin intii aan wax la isku sheego ayay tahay dadka inta iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo fahmaya ay ku soo kordhiyaan oo ma ku soo kordhiyaan oo ay ku soo kordhiyaan oo dadkii wax la xaq u leh bulshada ku soo kordhiyaan oo ayda dadka bulshada jooga ay uga faa'iideeyaan oo dadkii maanta u baahan Soomaaliga أنا سأتابع ذلك كله. وان كرتي. هذا كله يقول شنو الصوماليين وعلى أمورها يقول شنو بالإنتاج يقولوا لها الصوماليين يركز على الشغل ده. أنا دي أنا كان السلام يا وعليه فقط في سياسته هذا كان كمي وعليه ومرتديني وعليه وإلهي الصوماليين ده. وأنا كان يرانشله أيضا واتي أدي فاطمة عشنتهاي أبوان أحمد عبد الله محمود أحدا أو شيء ورئيسي قاعد في شبكة عالمية قاعد تفاكني وان خدمها زلنا أبوان عادي أبوان ما كنت يقاعد بكالي شبكة عالمية قاعد تفاكني سؤال يا أبوان سلامي ما كنت dhegeystayaal wuxuu abwaan axmed cabdilaahi maxamuud axda oo waramayay shabakada caalamiga ee Itraaf News dhegeystayaal wareysiga waxa idin soo diyaariyay halkan idinka soo gudbinaya aniga Khalid Bakeele tan ku kulmi doona dhegeystayaal barnaamijkan xiga waxaan idinkaga tagayaa aniga iyo dhammaan bahda shabakada caalamiga ee Itraaf News nooli kulante